Ambassador Baashe Xaaji Caawil Cumar safiirkii Somaliland ee dalka Sultanka Imaaraadka Carabta goordhaweytole madaxweyne Muuse Biixi Cabdi waxa uu ku bedelay dalka Kenya balse aragta xilkaasi durtaba warka qaar soo baxay waxay sheegayaan inaad halkaasi saluugtay oo aanad waqti xaadirkan la wareegin bal ambassador sadarta xilkaasi uu ku magacaabay saacado ka hor madaxweynaha Soomaaliya su'aashaadii weydiisay Luqmaan xilku horta waa meerto waana sunne oo marba qof ka loo magacaabayo halka la geeyo iyo halka lagu wareejinayaaba waa go'aan uu leeyahay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland go'aanka maanta soo baxay madaxweynuhu soo saaray lagu magacaabay safiirka dalka Kenya oo soo dhaweynaya sidoo yahay baan u qaatay runtii waxaanan mar hore sheegay anugu haddaan xil hayba kullaba madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweyne Muuse Biixi Cabdi inaan barbar taaganahay imikana nin xil laga qaadamay yihiin xilkii uu hayay inta laga bedelay xibal kale la geeyay xilkan imikana hayayna waxaan hayay muddo 3 sano ah oo waxay magacaabay madaxweynihii hore Jamhuuriyadda Soomaaliland muddada 3 sano ayaan hayayna markaad eegto xiriirka Jamhuuriyadda Soomaaliland la lahayd dalka Imaaraadku de waxaad oran kartaa wuxuu ahaa mid aan jirin ama uu ahaa mid markaas uu urtinahayo bilbilow gareeyay mas'uuliyaddii markaa aniga ay saartay waxay ahayd markaa inaan dalka ka sameeyo saaxiibo ganacsi kuwa siyaasadeed kuwa kale oo de xagga gurmadka iyo arrimaha marka in baahiyaha timaado inoo soo gurmada waxaad runtii oran kartaa muddada 3 sano xafiiskaygu jiray waxyaabihii ama ujeedooyinkii markaa laga lahaa ee ahaa inaynu xafiis sharciya samaysano ee ahayd inaynu maalgashi raadsano ee ahayd inaynu qaab siyaasi iyo xiriir siyaasi samayno intiiba inaynu ka gaarnay maanta alxamdulillah waxaa dalkeena jooga oo ka ganacsada shirkad dekedaha kuwii ugu waaweynaa ka mid ah oo shirkadda DP World waxaa bishii October insha Allah samaynaysaa oo bilaabaysaa mashruuci ballaarinta dekedda oo insha Allah madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweyne Muuse Biixi Cabdi iyo chairmanka shirkaddu ay si wada jira u dhagax dhigi doonaan waxaynu ognahay dhinaca kalena inay heshiis Jamhuuriyadda Soomaaliland la gashay dalka Imaaraadka oo ah heshiiskiisa saldhigga militariga kaasina wuxuu ahaa guul siyaasadeed oo Jamhuuriyadda Soomaaliland soo hooyatay mashaariic kalena way jiraan oo maalgashi oo ka mid yahay Freezonku waxaa kaloo ka mid ah ganacsato kale oo iyaguna imanaya oo xagga hadday noqoto tourismka iyaguna qayb ka ah dhanka kalena dalka Imaaraadku runtii muddada 3 sano ah waxaa jirtay masiibooyin fara badan oo dalka la kulmay oo xagga noqoto abaaraha ahayd iyo hadday noqoto roobabkii iyaguna dhawaan waxyeelayay intaba dalka Imaaraadku wuxuu ahaa dalka kaliya Carbeed sidii ahayd ugu soo gurmaday Jamhuuriyadda Soomaaliland hawlahaas oo dhan waxay ka unkamayeen shaqadooda ka socotay markii waxay ahayd waa hawsha xafiisku waday muddada xilka haynaan ka wadnay runtii waxaan ku amaanayaa mar walba amaanaya waxa weeyaan madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mar walba taageeray tusaale waxaan uga baxnay garab taagnaa maantana culays cusub weeyaan xafiiskan la magacaabay Kenya runtii isaguna mid ahmiyadiisa muhiimadiisa leh weeyaan mid loo baahan yahay inaynu siyaasad cusub ciyaarayo markaad eegto mandaqadii isbedelaysa markaad eegto waxa ka socda dalka Itoobiya waxyaabaha kale ka socda ama xidhiidhada kale socda ama wadamo isku biirayna ama kala go'ayaan markaad eegto inaguna aynu nahay dal Jamhuuriyadda Soomaaliland oo la ictiraafsanay laakiin raadinaya saaxiibo saaxiibaduna halka kubadda lagu ciyaaraya maanta waxa weeyaan Afrika waa Nairobi oo dunida iyo caalamka isugu yimaadeen marka ka laftirkiisu culayskiisu yeelanaya in saaxiibada Jamhuuriyadda Soomaaliland saaxiibo badan lagu sameeyo inaynu keyskeeni geeyno inaynu qadiyadeena mar walba faafino oo hadday noqoto European Union hadday noqoto Ingiriiska hadday noqoto Mareykanka iyo hadday noqoto caalamka kale halka jooga ee imika kula xafiisyada aynu gaarsiino marka insha Allah waxaan jeenayaa Ilaahay guuleeyo kan imikana insha Allah muddadii aan joogayna alxamdulillah si fiican bay hawsheedu u socotay imikana waxaan u ducaynaynaa ninka safiirka cusub loo soo magacaabay waqtiga ku haboonaatana xilka insha Allah waa wareejinayna hadda Allah
ambasador baashe cawil dad badan waxay garanayaan hawshii ballaarneed aad imaaraadka ka qabatay nairobi iyo kenya iyo somaliland iskuma xidhna waqtulxaadirkani ma lasoo odhan karaa madaxweyne biixi ee uu ku degdegay bedelidaada oo maadaama oo dalka imaaraadka carabta adiga howlo badan somaliland aad ka dhaadhicisay miyaanad is odhan karin waa laga habboonaa waqtulxaadirkani in madaxweynuhu xilkaa kuu sii daayo ilaa iyo inta laga bilaabay dhismaha dekeda berbere ee shirkadda d b maya runtii an waxaan qabaa madaxweynuhu dee mar walba isagaa horta qiimeeya oo eega qaabka siyaasadeed u soconayaan halka tiimkiisana intuu qiimeeyo is yidhaahdo ciyaartooygaad haysato kolba kee aad qaadanaysa aad geynayso meeshaad uga habboon tahay sidaan sheegay dalka imaaraadka waad sheegto dee wax badan baa ka qabsoomay maantana wuxuu gaadhay mustawe dee stable aad odhan karto oo qof kastoo yimaadaaba runtii kasii anbaqaadi karayo saad carbaabtayna heshiiska ama xidhiirka somaliland iyo kenya ka dhexeeya imika ha jiro laakiin waxaad moodaa dee mid bilow imika weli ah inuu yahay wax badanayna dee u baahan in laga qabto marka anigoo dee runtii ammaanaya mas-uuliyiintii ka horeeyey iyaguna horey u joogay iyaguna ka shaqeeyey waxaad odhan kartaa dee madaxweynuhu inuu halkan ii geeyey in halkan laftirkeeda uu arkay dee ahmiyadda ay leedahay kenya hadday noqoto xidhiirka wadamada africa hadday noqoto kuwa kale caalamka ee maanta u baahan inay qadiyadeena gaadhsiino dee maantana halka kubadda san hore u sheegay lagu ciyaaraya siyaasadda markay noqoto mandaqada geeska waxay odhan kartaa nairobi waxay ka mid tahay meelaha ugu horeeya haddaan ahayn number 1ka number 2ga marka halkii ugu habbooneed buu madaxweynuhu geeyey madaxweynuhuna isagaa go-aan kale anaguna waxaan gacan yaraashiisaan nahay oon la shaqaynaynaa oon taageersanahay insha allah waxaan rajaynaynaa in xilkaa naloo dhiibay ilaahay nagu asturo sidoo kale ambasador baashe xaaji cawil cumar oon wax ka weydiiyey inay la xidhiidho socdaalka uu ku joogo dalka madaxweyne axmed maxamed maxamuud silaanyo shirkadda d b wal oo sheegtay inay dib u dhigayso muddo 1 sano iyo badh bilaabidda dhismaha dekeda berbera isla markaasina madaxweyne biixi diiday waxa uu igu jawaabay dee horta waxaan jirin marka laga hadlo ama war aan beena marka laga hadlo ka hadalkiisa ayaaban sii mudnayn oo runtii aad doonaysa uu khaldan yahay heshiis dib loo dhigay ama dhagax dhig iyo ballaarin mashruuc ballaarin dib loo dhigay ma jiro mashruuca October buu bilaabmaya gudoomiyihii ama chairmankii shirkadda oo na uu imanaya isaga iyo madaxweynahana dhagax dhigayo mashruuca ballaarintiisa gelinaya sidii hore u sheegtay shirkadduna mashruucu ahaa phase 1 ku in 210 milyan la geliyo oo dekada balaarinteeda annagu warkaasaanu haynaa warkaasaa ka xaqiiqa hawshaasina sidii loogu talagalay u socotaa ninka waxa aan jirin sheegaya warka kale sheegaya isaga noo sheegay halkuu warkaa ka soo helay ma DB walba hadashay ma madaxweyne buu soo hadlay ma dawlad kale oo aynaan ogeyn ba hadashay annagu warkaa ma hayno warkaasina waa been mooyaan hawshaasi sidii loogu talagalay u socotaa mara wax ka weydiiyey sidoo kale in shirkadda d b wal sun la sheegay dekadaasi in lagu aasay ay wax ka jiraan ayaa waxa uu igu jawaabay hawshan kale la xidhiidhisay aad ka hadlaysay arrinta sunta ana horta waxaa mudan in marka waxyaabaha qaar laga hadlayo la isweydiiyo shirkadda d b wal waayo shirkadda d b wal waa shirkad maamusha 87 dekadood oo caalamka ah oo ku jiraan ingiriiska iyo Canada Australia dunida wadamadii hore ugu maray markay noqoto dekadaha markay noqoto xagga environmental impact assessment-ka iyo qaabka maamulka wadamadii ugu hor sharciyada adkaa dunida ayay ka shaqeysaa maamusha shirkad caynkaas oo dunida meelay ugu adkaa shuruucdoodii iyo qawaaniintoodii ka shaqeynaysaa sababta ay berbera inta u timaado ay wax musuqmaasuqa ama dhibaato u sameynaysaa ma jirto shirkaddan waa shirkad waxa weeyaan caalamiya oo ballaaran oo ah shirkadda saddexaad ee ugu ballaaran dunida inay inoo timi oo inagu aamintay maalgashiga inta haleg dalkeena oo ay qaadatay inagoo aan ahayn wadan dee dunida laga ictiraafsan yahay wadan financially siinaya ama damaanad qaadi kara investmentka intaa leeg oo beritoole haddii wax ku dhacaan aynaan bangiyo u siinaya check aynu saxiixaynu leenahay annagaa damaanad qaadin aynaan ahayn inay qaadatay in maanta lagu abaalgudo